رئيسul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre iyo wafdi uu hogaaminaya ayaa soo gaaray magaalada Brussels ee wadanka Belgiumka halkan oo ay kaga qayb gali doonaan shir caalami ah oo looga hadlayo arrimaha amniga wadanka Soomaaliya. wafdiga raiisul wasaaraha ayaa waxaa ka mid ah wasiirka amniga qaranka ee dowladda federaalka Soomaaliya Mudane Abuukar Islaaw Ducaale, wasiiru dowlaha gaashaandhigga Maxamed Cali Xagaa iyo waliba xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo ka tirsan guddiga difaaca ee baarlamaanka Soomaaliya oo ay ka mid yihiin xildhibaan Xuseen Carab Ciise iyo waliba xildhibaan Sadiiq Warfa. sidoo kale wafdiga raiisul wasaaraha waxaa ka mid ah xogayaha guud ee maamulka gobolka Banaadir Mudane Cumar Cabdirasaaq. raiisul wasaaraha ayaa waxa uu shirgudoomin doonaa shirka caalamiga ee looga hadlaya arrimaha amniga ee wadanka Soomaaliya ayadoo shirkaasina ay ka soo qayb gali doonaan saraakiil ka socota wadamada ay ciidamadooda ka joogaan wadanka Soomaaliya iyo waliba xubno ka tirsan beesha caalamka. firka Soomaaliya oo fadhiya wadamada Benelux iyo waliba midowga Yurub Ambassador Cali Saciid Faqi ayaa ka warbixiyay shirka raiisul wasaaraha uu ka qayb galaya ee ka dhacaya halka. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدات أمباس برايم مينستر كنوات بوكي من هالكان عاد بفرحة نوجودها إن هالكان كسر دوينو أمباس وحكا قيب قلايا شير أو لوجه الله أمني كسوماليات شركة سواسية شركة دومي وكياي مركا لوجه اللي دونا معركتي أريمها أمني كسومالي سيد لوديسي دونا أو أي وجوه رئيس عيدن كميليتريجا iyo maaragtay sidii ay ciidamadeena ay u guuleysan lahayn amniga wadanka inay kala wareegaan qolooyinka AMISOM. shirkan wuxuu daba socdaa miyaa shirkii dhawaan ka dhacay magaalada Muqdisho ayuu daba socdaa. shirkaas uu daba socdaa shir kale oo weyn oo hadda la sii qaban qaabin doono oo samarkan wasaaraha inta uu joogo wadankan Belgiumka ayaa waxa uu kulamo la qaadan doonaa xubno ka tirsan beesha caalamka isagoo kala hadli doona arrimaha Soomaaliya iyo sida Soomaaliya ay hadda ay u soo wanaagsanaanayso ayadoo raiisul wasaaraha la filayo in uu kulan la qaato raiisul wasaaraha wadankan Belgiumka. waxaa sidoo kale uu raiisul wasaaraha la kulmi doonaa jaaliyada Soomaalida ee ku dhaqan wadankan Belgiumka. Cabdullaahi Maxamed Xuseen Taajiro warbaahinta qaranka magaalada Brussels wadanka Belgiumka.